Audio Jungle. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha qaaya leh oo meel kasta joogtaan kusoo dhawaada shabakadeena wararka ee Sila 24 bal waxaad nala yeera daawataan muuqaal gaaban oo siyaasiyiinta Soomaaliland ay isku durayaan iyagoo jooga goob xaflad mehera oo farxadi ka socoto laakiin waxay ka doorbideen inay arrimahooda siyaasadda kaga hadlaan arrimahan waa arrimo in badan soo jiitamiyay oo xafladaha iyo siyaasaddii way isku dhex mulaaqmeen bal daawasho wanaagsan waxaan raacinayaa in yarba kulle dad mikrofon soo istaagto dee kelmad baa iminka de waa maayirkii hore hargeysa la yidhaahdaa dhibaatana iguma dhicin waxa weeye siyaasiyiin badan baa dadka ku abaabulaa haddaynu waxweyne inanteennaa goblamaysa amba inanteennaa guurbeelaysa iminka maalin walba inan baan bixiyaa oo ikraan taa ugu dambaysa ay tahay wax ayaa abluhu noqonayaana ma jire waxaan leeyahay ninkii xisbi doonaya iyo ninkii doonaya urur iyo ninkii wax doonayaba ninowna dee dadka shacbiga waxaan leeyahay dhiiggiina ma lehee codka hadlaysa siiyo oo kii wax waayaana dee Somaliland waa la wada leeyahay Somaliland ha la wada joogo qoladii saaxiibaday wadaniyo halkaa fadhiyana waxaan leeyahay markay meesha yimaadeen gudoomiyihii iyo musharaxiiba way socdaane labada dhinac bay isu qaybinayaan ba islaahay malaa reer Gibile codka doonayaan baan filayaa waxaan arkay nin ka hadlayay oo arrimo siyaasi ka hadlayay oo reer Gibile iyo wadani ka hadlayay reer Gibile iyo wadani halkan maanta ma aha Gibile iyo wadanina waa dad isa Gibilena waxay ka mid tahay dalka uu wadani ka sharaxan yahay waa dadka yagii halkaasay waxaan casuumay Cabdiqani iyo aanu casuumada u nimi waxa se dareemayaa uun mas'uuliyad darrada ninka mas'uulka ka hadlayay waqtigan maanta taagan waxa idin xasuusto abaarta iyo duruufta iyo sixir bararka lagu jiro oo aad iyo aad bulshada u taabtay halkuu ka xasuustay fadhigayaga inaanu halkaa fadhino oo aanu reer Gibile fadhiisanay inaanu Cabdiqani la fadhiisano laba isku beel ka soo jeeda waxay ahayd damiirkiisu inuu xasuusiyo duruufta adag ee lagu jiro ee abaarta iyo biyo dhaamiska waxaanan runtii bulshada reer Somaliland dawladda iyo qof kasta oo ka damqanayaba ugu baaqaya horena ugu baaqnay in laga qayb qaato duruufta adag ee biyo dhaamiska iyo abaarta jirta waxaan leenahay xukuumadda iyo inta ku hawlan oo ay guddiga abaaraha loo magacaabay ka mid tahay waa la raagteen filashadii leedika filayay annagu xisbi mucaarada baanu nahay gaar waxba uma ururin karo waxaanu wixii qaranku ururinayaanu wax ku darsanaynaa qayb ka nahay